gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayraad Dirir oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladda amniga gobolka. waxaan leenahay gobolka Sool waa nabadgeliyo wax dhibaato ah hadda ka taagan haba yaraatee ma jirto. waxaa mahadaan iskale Ilaahay raxmaanka ah guud ahaan gobolku waa rooban yahay raxmaadkii ugu Ilaahay waa ku shubay. waxaan leenahay deegaanka Tukaraqeed oo ajiida hore ee bariyahan dhibaatooyinka ay ka jiraan ama colaadu ka socotay ciidamada qaranka iyo maamul goboleedka Soomaaliya Puntland way degan tahay shantii casho ugu dambeysay wax dhibaato kama jiraan ciidamada fariismadu way ku sugan yihiin. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ciidamada amniga aan amni jirin salaadi ma jirayso waxbarasho jiri mayso caafimaadna jiri maayo ganacsiga jiri maayo. maanta gobolkan Sool wuxuu ku sugan yahay xaalad